تناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والله يا روحان ولي كبودة الراء ندوذي نسيدات سند لها أها إلوقة من تري دمرك مسلمات كأه دقن مقالة ودنسي نواحية دولة وحن كتير معلومتي اللغات وحين إمك بالعمل دون إن شاء الله تعالى محاضرة اللغات. محاضرة وحين المقعد وياهي صدقة يفضل جيدة وحين نقول دون إن شاء الله تعالى الشيخ عبد الرحمن أبيض فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد طبعا marka mawduuc sadaqada laga hadlayo dadku waxa laga yaabaa inay u qaataan in sadaqa la ururin doono, laakiin waxa laga sheegay inaan malahada wax la ururin doonin mustaqbalka soo suurtagalbeed. mawduucan oo diinteena mawaadiicda ugu muhiimsan ka mid ah ayaa walaaluhu ii sheegeen inaan wax ka idhaahdo haddii alla ka dhigo insha allahu tacaala. sadaqadu walaalayaal aada baa darajadeeda u sarreysaa. dadka ahlu sadaqada ah ee waxbaxsadana aada baa diinta loogu ammaanay. nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa wuxuu ku leeyahay min afdali alcamali idkhaalu suruuri cala almu'min. camal waxaa u fadli badan qof muslim ah oo qalbigiisa farax la geliyo. seebaa farax loo gelinayaa? yaqdi canhu daynan, dayn buu ka gudayaa. yaqdi lahu xaajatan, arrin buu u qabanayaa. yunafisu lahu kurbatan, mushkilad haysata buu ka faydayaa. waxayna ku iman kartaa arrimaha nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. dee waa qofkii oo markaa xaggii maadadii iyo maalkii laga saacido. waxaa kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam isagoo sadaqada iyo wanaaggeeda ka hadlaya: ina alacmaala tatabaaha fataqulu sadaqatu ana afdalukum. wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, acmaashu way isu faantaa, markaasaa sadaqadu waxay tiraahdaa anaa idinku fadli badan. waxaa kaloo nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, inama addunyaa liarbacati nafarin. adduunyadatan afar qof baa ugu qiimo badan. wuxuu markaa nabigu ugu horreysiiyey calayhi salaatu wasalaam: cabdin razaqahu allahu maalan wa cilman fahuwa yattaqi fiihi rabbahu. addoon ilaahay uu siiyey maal iyo cilmi oo markaa ilaahay uga baqaya, wa yasilu fiihi raximahu, qaraabadiisa ku xidhiirinaya, wa yacmalu fiihi xaqan, xaqiina ilaahay subxaanahu caza wajal amrayna ku gudanaya. fa hada biafdali lmanaasil. kaasi darajooyinka kuwa ugu sarreeya ayay markaa ku jiraa. sadaqadu walaalayaa fadligeeda waxyaalahayna tusinaya waxaa ka mid ah masaa'ibta iyo balaayooyinka iyo dhibaatooyinka ilaahay naga ilaaliye ayay ka hortagtaa, sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam. wuxuu nabigu yihi: sanaa'icu lmacruufi taqii masaarica asuu'i walaafaati walharakaat. wanaagoo la sameeyo oo sadaqadu ay ka mid tahay waxay qofka ka ilaalisaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam si xun qofku inuu u dhinto. waxay ka ilaalisaa aafo iyo musiibo weyne inay ku dhacdo, halaag inuu la kulmo, intaba waa ka ilaalisaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. wuxuu nabigu yihi xadiis kale: ficlu lmacruufi yaqii masaarica suu. qofka wanaag sameeya oo sadaqadu ay ka mid tahay waxay qofka ka ilaalisaa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam wax laga naxo inuu qofkaasi la kulmo. wuxuu kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam: alsadaqatu tasuddu 70 baaban min asuu. sadaqadu waxay qofka ka hor istaagtaa 70 albaab oo xumaato ah iyo maaragtay dhibaato ayay sadaqadu ka hor istaagtaa. wuxuu kaloo nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam: daawuu mardaakum bisadaqa. war kuwiina xanuunsanaya sadaqada ku daweeya. salafkuna arrintaa waa samayn jireen. dadkii wanaagsanaa inaga inagu horreeyey aada bay sadaqada isugu daweyn jireen, sida maaragtay la tilmaamay. cabdullahi ibnu mubaarak ayaa nin u yimid oo wuxuu ku yihi: waxaan ka eed sheeganaya kasoo baxa ruugga iga soo baxay oo 7 sano dhakhaatiirtii ay ku daaleen. markaasuu yihi ceel qod oo waxa weye maaragtay allahuma mustacaan dadku waa ka cabaan
ninkii ceelkii markuu qoday ilaahay subxaana casa wajal xanuunka waa ka dulqaaday. waxaa kaloo qisaska la sheega ka mid a oo salafkii laga soo guuriyey yani maaragtay cabdullahi bn xaakim oo sheekhan maaragtay kitaabkan mustadraka iska leh ayaa waxaa la yidhi waxaa kasoo baxay wejigiisa dhaawacyo. haddii uu isdaweeyey oo muslimiinta u duceeyeen waxba waa tari weyday. kadib waxaa markaa lagu baraarujiyey inuu bal wax sadaqadaysto. markuu wax sadaqadaystana ilaahi subxaana casa wajalla waa ku daweeyey. waxaa la sheegaa qiso laga soo guuriyo anas bn malik oo maaragtay xukun marfuuca leh oo nabiga markaa loo tiiriyay calayhi salaatu wasalaam in jibriil uu u yimi calayhi salaam nabiyullahi yacquub oo ku yidhi yacquub oo ma garanaysaa rabbi wuxuu ku leeyahay miyaad garanaysaa lima adhabtu basaraka araggaaga waxaan u tagsiiyey wa qawastu dahraka dhabarkaaga aan usoo jebiyey oo macnaa aan da-daa weyn kuu gaadhsiiyey oo maaragtay gabowga ah caruurtaadana dhibta ay sameeyaan waxay u sameeyaan miyaad garanaysa. markaasuu yidhi maya. markaasaa jibriil wuxuu ku leeyahay inakum dabaxtum shaatan maalin baad neef ariga gowracateen fa ataakum miskiinun yatiim markaasaa ku miskiinoo agooni idin yimi wahuwa saa'imun isagoo sooman falam tutcimuuhu minhu shay-an waxba kama aydin siinin. qofku isagoo haysta hadduu wax bixiyo dhibaatadii ka hor istaagaysaa. haddii isagoo wax haysta wax bixin waayana inay markaa dhibaato u horseedaa laga yaaba. nebi ilaahay baa saa loo galay adiga marka xaggee baa joogtaa wey. sadaqada ajarkeeda waa la laablaabaa. qur-aankaana ilaahay ku sheegay subxaanahu caza wajal rabbi yidhi markuu muslimiinta wax baxsado ammaanayay wa aqradu llaha qardan xasanan yudaacafu lahum walahum ajrun kariim. kuwa wax baxsada yani waxa way maaragtay ajarkooda waa loo laablaabaa ajar wanaagsan oo qiimo badan bay leeyihiin buu rabbi yidhi subxaana wa tacala. waxaa kaloo rabbi weyne fi suurati albaqara ku yidhi man da aladii yuqridu allaha qardan xasanan fayudaacifahu lahu adcaafan kadiira. wariyaha ilaahay subxaana caza wajalla wax diinsanaya oo markaa rabbi u laablaabaa. imisaa la laablaabayaa aayad kala rabbi ku sheegay fi suurati albaqara mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fi sabiili illah kamathali xabatin anbatat 7 sanaabila fi kuli sumbulatin 100 xaba wallahu yudaacifu liman yashaa wallahu waasicun caliim. qofka wax baxsada waxaa loo laablaabaa buu rabbi leeyahy ilaa 700 oo goor baa loo laablaabaa ilamaa iyo laablaabyo fara badan laga gaarsiiyo. wuxuu nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam isagoo sadaqada culayskeeda iyo laablaabkeeda ka warramaya man anfaqa nafaqatan fi sabiili illahi kutiba lahu 700 dacif. qofkii ilahay dartii wuxu baxsada waxaa loo laablaabaa 700 goor. wuxuu kaloo nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam maalin baa nin saxaabigii u keenay nabiga hal uu hogaaminayo oo yiri rasuulka ilahay dartii waa la baxsaday. markaasaa nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam yani adiguna waxaad leedahay laka biha yowma alqiyaama alla agtii waxaad aakhiro ku leedahay 700 naaqa 700 oo maaragtay halaad kulluhaa makhtuuma oo dhammaantoodba yani maaragtay ay yihiin kuwa la hogaaminayo. sadaqadu walaalayaal waxay baktiisaa dunuubta waana lagu dhaafaa sida nabigu sheegay ilaahayna subxaana casa wajalla qur-aanka uu ku sheegay. waxaa ka mid ah dadka wax sadaqadaysta markuu rabbi ammaanay kadib waxaa la yidhi acadda allahu lahum maqfiratan wa ajran cadiiman. kuwa wax baxsada waxaa loo diyaariyey dembi dhaaf iyo ajar weyn baa rabbi yidhi subxaana wa tacaala. wuxuu kaloo alla leeyahay fi suurati aali cimraan isagoo muslimiinta la hadlaya wasaaricuu ilaa maqfiratin min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalardu ciddat lilmuttaqiin. wardadyahow dembi dhaafka ilaahay u degdega jannada ilaahay u degdega. kuwa degdegaya waa kuwee aladiina yunfiquuna fi saraa'i wadaraa waa kuwa wax baxsanaya iyagoo wax haysta iyo iyagoo waxba haysan labadaba wax baxsanaya. waalkaadimiina algayda cadhada qarinaya waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin. nabiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam tasadaquu walow bitamra war wax baxsada timirba ha noqote fa inaha tasuddu min aljaa'ic kii gaajaysnaayo gaajadii ka baabiinaysaa wa tudfiu lkhati'ata adigana gefkiiyo dembiga aad gashay bay kaa baktiinaysaa kamaa yudfiu lmaau nnaara sida dabku ay maaragtay biyuhu ay u baktiyaan. wuxuu kale nabigu uri calayhi salaatu wasalaam wasadaqatu tudfiu lkhati'a kamaa yadhabu ljaliidu cala asafaa. yani sadaqadu waxay baktiisaa dembiga iyo gefkay baktiisaa sida qabowga iyo maaragtay barafku uu buurta korkeeda markaa ugu baaba-o. wuxuu kaloo nabigu uri calayhi salaatu wasalaam yaa macshara tujaar war kuwan ganacsadow ina ashayطaana wاlإثma yaxduraani fi lbayc.
shaydaanka iyo dembigu markaad wixiibsanaysaan bay soo xaadiraan fashuubuu baycikum bisadaqa yani waxay maaragtay beeciina waxaad dhex gelisaan sadaqa dhexgeliya wixii khalad ahayd dembi ahaa maaragtay ay beeca dhexdiisa dhacay sadaqadaasaa markaa idinka baktinaysa sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam sadaqadu walaalayaal maalkay barakaysaa oo qofku hadduu is yiraahdo haddaad wax baxsato arbaa barnaamijyadii hawlihii iyo wixii aad lahayd ay kaa dhaawacmaan sadaqadu iyada ayaa maalka kuu barakaynaysa kuuna badinaysa ilaahiga subxaana casa wajal wuxuu leeyahy wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuhu wahuwa khayru raasiqiin wixii aad baxsataan ilaahay baa subxaana casa wajal wixii aad bixiseen wax ka bedelan idin dabamarinaya wahuwa khayru raasiqiin kuwa wax risaaqaan rabbi isaga u wanaagsan macnaheedu marka waxa weeye aduu haddaad wax baxsatay meeshaad ka soo saartay wax ka bedelan baa ilaahay siinaya oo maaragtay kugu buuxinaya oo weliba wixii horena ka wanaagsan aayad qur-aan rabbi waatuu ku laha subxaana wa tacaala la-in shakartum la-asiidanakum haddaad ilahay u shukridaan ilahay uu idin kordhinaya macnaa haddaad wax baxsataan ama wanaagaad samaysaan waa laydin siyaadinaya laydinka nuqsaamin maayo xadiisulqudsigiina waa tuu rabbi ku yidhi ya bna aadam unfiq calayk ibna aadamow wax baxso anna wax baan ku siinaya haddaad wax baxsato waxbaa lagu siinaya adigana nabiguna calayhi salaatu wasalaam waatuu yidhi maa futixa rajulun baabu catiyatin bisadaqatin ilaa zaadahu llahu biha kafra nin looma furo ama qof bani aadama looma furo inuu wax baxsado dadku yani way ku kala wanaagsan yihiin oo dadka qaar baa ilaahay u barakeeya oo meeshii wax laga bixinaya wax ku darsada masaajid wax ku darsanaya miskiin wax la siinaya wax ku darsanaya yacni sadaqada kama haro dadka qaarkoodna waa lagu adkeeya shaydaanka ku adkeeya qofkii markaa loo furo waa arrimin weyn oo maaragtay nimco weyn weeye qofkii loo furo loo sahlo wuxuu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam ilaa zaadahu llahu biha kafra ilaa ilaahay maalka ugu badiyaa qofkii sadaqada loo furo maalkaa loogu badiyaa baa nabigu uri calayhi salaatu wasalaam xadiiskan macruufkan waad garanaysaa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam maa min yowmin yusbixu alcibaadu fiihi ila malakaani yanzilaani fayaqulu axaduhumaa allahuma acti munfiqan khalafan wayaqulu alaakhar allahuma acti mumsikan talafan maalin ma jirto qoraxi soo baxdo ilamaa laba malag baa soo dega mid wuxuu odhanayaa ilaahay ka wax baxsada wax sii ka kalena wuxuu odhanayaa ilaahay ka wax haysta ee ku bakayda ka tirtiroo ka baabi sadaqadu marka saad arkayso maalkii bay kordhinaysaa way kobcinaysaa ma yaranayso waxaa kaloo nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo guuriyey nabigu inuu yihi baynamaa rajulun bifalaati min alardi maalin baa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam nin ummadihii idinku horreeyey ah oo meel bannaan maraya ayaa wuxuu maqlay cod wuxuu ka maqlay samada codkaasi muxuu leeyahay wuxuu leeyahay isqi xadiiqata fulaan beerta hebel soo waraabi ninkii markaa wuxuu yihi waan socday markaasa waxaan arkay buu yihi roobkii oo maaragtay allahuma mustacaan meel yaroo kooban ku hooraya hogol yaroo meel yaroo kooban inta ku curatay ku hoorayso si fiican ugu daaysa meeshii baan soo aaday buu yidhi mise nin baa darkiisii hagaajinaya oo maaragtay beertiisii ka warabsanaya markaasa waxaan ku yidhi beriyaa cabdallahi addoonka ilaahay ma ismo magacaagu waa maxay markaasu wuxuu igu yidhi hebel baa la yidhahdaa magacii aan samada ka maqlay iyadoo laga leeyahay yacni ninka hala waraabiyo markaasa wuxuu igu yidhi buu yidhi marka maxaad magacayga ii weydiinaysaa lima tas'alanii can ismi magacayga maxaad ii weydiinaysaa markaasuu yidhi waxaan maqlay anaa dhulka soconayaan waxaan samada ka maqlay daruurta iyadoo laleeyahay meel heblaayo oo maaragtay ninkaa soo waraabi ninkaa waraabi maxaad samaysaa wuxuu yidhi wax kale ma sameeyee beertani markay iisoo go-do baan waxaan sadaqadaystaa buu yidhi saddex meeloodoo meelna carruurteedaan maaragtay biil uga dhigaa saddex meeloodoo meelna markaa waan kaydsaa wanaagga uu samayn jiray darteed ayaa markaa ilaahay subxaana casa wajalla maalkiisa ugu barakeynaya oo maaragtay allahuma mustacaan loogu waraabinaya oo beertii si gaara loogu waraabinaya nabiguna xadiiska caanka waatuu yidhi maa naqasat sadaqatun min maal sadaqadu maalka ma nuqsaamiso inay barakayso oo kordhiso mooye ma nuqsaamiso bal nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ku dhaaftay in sadaqadu maalka aanay nuqsaaminaynin nabigu waatuu xadiis saxiixa ku yidhi halaathun uqsimu calayhina saddex baan ku dhaaranayaa wa uxadidukum xadiidan faxfaduuh warkiisana waa idiin sheegayaa saddexdaa xifdiya waxaa ka mid ahaa nabigu inuu yidhi maa naqasa maalu cabdin min sadaqa addoon maalkii sadaqa kuma nuqsaamo nabigu waa ku dhaartay calayhi salaatu wasalaam wax nabigu ku dhaartayna markaa wax la hubo weeye waana arrin runtii la tijaabiyey oo dadka wax baxsadaa way yaqaanaan sadaqadu inaanay maxay maalka nuqsaaminaynin
صدقة فضل كده ولا لا وحنا تسينا يوحى كمدا صدقة وحيالها عذاب كبني آدم كهر استاجي كميت إلهي يقول لي عذاب كآخرة هي عذاب كقبر جوا لبضل وحيالها ده كهر استاجي أي كميت نبي وحي عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة كما صدقة وحي لم ينتهي كمثل رجل أسره عدو سيدي قف ماركتي عدو بيسو أي قبصدين أو دبلنا أنت حاول كو أرد كيين أو قراعين أي كوير هذا إسفراء قفك سمر كان محوصة مين يا مال كيسو علم بيسكفرون يا النبي عليه الصلاة والسلام صدقة وصدقة وكلاه قفك النار تكوح ليس النار تلا بقفرته حديث كي دارها وحكى النبي كوير حديث أبو هريرة حديث صحيحة النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت إذا وضع في قبره قفك الضوم كأدمته marka qabrigiisa la dhigo oo malaa'igtu ay u timaado wuxuu nabigu عليه الصلاة والسلام isagoo wali qofkii uu sanqadhiina maqlayo ayaa marka malaa'igtu imaanaysa qofkaas hadduu tukan jiray salaadii baa imaanaysa uu nabigu عليه الصلاة والسلام cinda ra'sihi madaxiisa agtiisa salaadii fariisanaysa hadduu soomi jiray soomkii baa imaanayo can yamiinihi midigtiisu fariisanaya hadduu zaka bixin jiray zakadii baa imaanayso can shimaalihi bidixday ka fariisanaysa hadduu wax sadaqadaysan jiray oo qaraabada xiriirin jiray oo ihsaan samayn jiray wanaaga iyo sadaqadaasina waa imaanaysa oo xagga maaragtay Allah musta'an lugihiisa fariisanaysa wuxuu nabigu عليه الصلاة والسلام qofka marka khayrkiisu sida u wardiyeenayo fayuuta min qibali ra'sihi xagga madaxa malaa'igtu uga imaanaysa marka salaadii waxay oranaysaa ma qibali madkhal aniga meel la iga soo galay ma banaan qofkani salaadii waa ilaalin jiray meeshii markaa maaragtay aan kaga aadanaa ee waardiyaha aan ka ahaa laga soo geli maayo qofkan midigtiisii bidixdiisii lugihiisii yani meel kasta qofkii markaa waa qof laga difaacayo weeye sadaqadu markaa saad arkayso qofka maaragtay muslimka ee wax baxsan jiray ihsaanka samayn jiray qabrigiisa cadaabka qabrigii bay ka badbaadinaysaa oo lugihiisay fadhidaa oo cadaabka iyo ciqaabka iyo malaa'igtaas waxay la socoto ayay ku hortagaysaa nabigu عليه الصلاة والسلام واتو حديث كله صحيح كويري ما منكم من أحد كاسوا على القبر عذاب آخره ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان قف مجره إلا إلهي بآخر لها بالدورة إيضا وحو كلا ترجمانيا أو كلا أفقاديا آني جري قفكم مركا مدك تسوئيغيا أرك ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمل كيسموه بدح تسوئيغيا أرك ما إلا عمل كيسموه هرتي سوئيغيا فلا يرى إلا نار تلقاء وجهه ما أركي إلى نار سوق قابل سنويه نبي مركا وحي عليه الصلاة والسلام فاتقوا النار ولو بشق تمرة وارضوا النار توحي سكاقبها تمر جيحي بهاءها توحي سكاقبها حديثكم مركا وحي نتوسنا يا صدقوا المركا أن وحيالها تلك النار تكو سكاقبها إني مركا تهي وحيالها من هذا النار تكبد دادية إني تهي بل الحديث بقى شرعان والنبي عليه الصلاة والسلام سقارة دمرك أقولها الله أتى النبي قويري يا معشر النساء والدمر تصدقنا وحب حصدا محاي وحب حصنا يندمرك الله أمرين وحب حصدان فإني رأيتكن أكثر أهل النار النبي عليه الصلاة والسلام أهل النار كإنها تقول بدنتين بارد الأركان وحب حصدا صدقوا المركة وحي قف كور استاغيسا عذابك إلهي عقابك النار تكور استاغيسا لها إنه وحرية وحقوا لكم إذا حديثة المامية صدقوا النار تكور استاغتو حديث النبي عليه الصلاة والسلام النبي هو يريد اجعلوا بينكم وبين النار حجابا ولو بشق تمرة وارضيه إذنك إيا النار توحي إذن دحيان تمير دلاعي أما تمير جيحي بهن قتال وحي إذن دحيان قرآن كان إلهي سبحانه وتعالى وتكويري الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كوا مال بحنايا هبين مال بحب حسنايا سموا قتايا سقصهم حب حسنايا كوا سي أجر كود ربي أكتسي كليهين ممرقون يا منع بصنايا معنا ممرقون يانو أدونك أي كسر تجان محا تلو ولا وشقيسان وإذا كم بالماء وقفك سوى شقيسي مع بصنايا كبغ الماء من 4 كاهر رئيسي تلو محاك لوكم بدونتا إلهي لك مدبالي سبحانه وتعالى لو هذا محا يكون مترسين دادكاسي إن الدنيا دا يكسر تجان أنا كم رقينين أي وحي صوت ضيعان آخرنا يوسع عدان أما عذاب كان كهر ريان أنا كم رقين أما أنا كبقينين لعذاب مالك تكهر ريان مجرين وحيكون مترسين مالك أي بحين أيان هبين يا مالي سيسيرا يسموقته بيكون متيسن سيدي الله سبحانه عز وجل قرآن الشيء نبي عليه الصلاة والسلام حديث سيح الركويل 40 خصلة تضم مارتي أفرتن أهرمات وعلاها أي أوكر ريسو مليحة العنز نيف أريا ومال أهان لو بحي
ما من عامل من شقيا مجره يعمل بخصلة منها أو أفرتن كاس متكملة سماية إلا مهدو سمايو ثواب كيري أبا المرين تيرو ألا أكتسي أهاتي أبا المرين كان الملأ إلا أدخله الله بها الجنة إلا إله سبحانه وتعالى جنة قليا يعني أفرتن أرموت ومكر رئيسه ناف أريه الله بحيه ما الله بحيه ناف أريه ما الله بحيه وحي كسي وينه ده كسي أشر وين أفرتن كاس مركا وكسي يليه ناف أريه وحي كسي وصيوي قفت مركا إلهي درتي عملك أصلا يوصل غضيستان أمالك الملك النبي عليه عليه الصلاة والسلام إلا ما إن شاء الله لقليه مويه صدقته ولا ليال فضايش إذا فرها بدون حكم ده صدقته واحد علامات أطهي قفك واحد أحسن يوقف إيمانك سقوي هاي يقينتي سؤال حب بدنتها إنه هاي كوكرسون رزق غير الهاي بحيو سيدا إلى هذا وحسي إنك بدنا إنه سينكر أو إيمانك سا أي علامات أطهي صدرت النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان صدقته وحجه وحجه قفك إيمانك سا علامات وحيالها إن تسيني صدقة فضل هذا وحكم دورة ليال صدقته نفط وحي كندي في سان حماتدي وعدم نفاقي ضبيعدي حمحما خلقي وحما ده وحي لدين كلا هذه حمتا ضبيعدي حمحما بي كندي في نيسا صدقته نفط كندي في سان وعود دليله آيات القرآن كده ربي سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قفل النفط حماتدي إذا لقد يريه بخير لماذا إذا لقد يريه كل لباني ودار الدنيا دار آخر لبدا بكل لباني وولا إله سبحانه عز وجل أمر ما يستريد صدقه ولا ليال وحكم إذا فضائش هذا وباب كوفر يا عماش خير قف هدو بحصده وحبحصد كاسي وحفر يا أسهلية خير في كرارا صلاة الليل كي أسهلية صوم كي أسهلية قراءة القرآن كي أسهلية علم البرشاد كي أسهلية محايا لربوح القرآن كله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى قف وحبحصده وإلهي كبقه وجنده أي آخرهم أيه وناقا أسهلنا بربي سبحانه وتعالى ونقول أسهل يا مركب ومحي وما ركت الله مستعان أعماشي طاعاتك عباداتك أي مركب أسهل يا هذه مركب خير كو أدري هاي صدقة كود ذلك سيرها سبحانه عز وجل ومركب كو ما ركت بديه خيرك وناقا علينا كو بدي فضايش صدقة وحكم ولا ليال آخر ولا هرسن دونا أنت صدقة وإلى أفتها أي هركا وحى هرسن إنسان إلى كان دونا نبغى توحدي سيح كبير عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقتي حتى يفصل بين الناس قف كسداوا صدقتي سيون بهرسن دونا انت dadka la kala saaray maxsharka inta la taagan yahay waxa aad harsan doontay halka ku noqon doona waa sadaqadaada hadana waxba baxsan maxaa harsanaysa qofka masaajidka weyn dhistay iyo masaajidkaas uu harsan doona insha Allah taala qofka xoogay laba koran baxsaday labada koran de wixii ay u noqdaan bu harsan doona qof kastaaba maalinka qorraxda la soo dhaweynayo ee bididku dadka xakameyn doona ee kuleelkeeda ilaahay mooy cid kale oo ka warrami kara aanu jirin subxaanahu wa tacaala waxaad harsan doontaa waa harka sadaqadaas ee nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo nabigu xadiis saxiixa ku yidhi man nafasa can gharimihi aw maxa canhu kaana fi dili lcarshi yowma alqiyaama qofka waxa weeye maaragtay qofka daynka ku leh qofka uu daynka ku leeyahay cafwan qofka isaga u qaamaysan ee uu daynka uu ku leeyahay qofka daynka ka cafiya ee iska daaya wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam carshiga alle harkiisa ayuu harsan doonaa maalinta qiyaama waxaa kaloo nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam sabcatun yudilluhum allahu fi dillihi yowma laa dilla ilaa dilluhu toddoba maalinta qiyaame ilaahay carshigiisa ayay harsan doonaan harka carshigay harsan doonaan waxaa ka mid ah rajulun tasadaqa bisadaqatin fa akhfaaha xataa laa taclama shimaalu maa tunfiqu yamiinuhu qof wax baxsaday oo wuxuu wax bixiyey maaragtay qariyey naftiisu maaragtay allah mustacaan ka qariyay cid kale iska daaya qofkaasi rabbi weeye subxaanahu caza wajal carshigiisa ayuu harsan doonaa waxaa ka mid walaalayaal sadaqada iyo fadligeeda iyo ajarka ay leedahay waxaa qofka lagu abaalmarinayaa wixii uu shaqaystay ay wax u dhigma isna lagu abaalmarin doono maxaa yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa xadiis saxiixa ku yidhi ayumaa muslimin kasaa musliman qofkii qof muslima dhar siiya calaa curyin qaawanaan dhar ka siiya kasaahu allahu min khudri iljanna ilaahay subxaanahu caza wajal isagana wuxuu hu uga dhigaa jannada cagaarkeeda hu looga dhiga wa ayumaa muslimin adcama musliman qof kastoo qof muslima quudiya oo calaa juucin gaajo ka quudiya adcamahu allahu min thimaari iljanna isagana ilaahay subxaanahu wa tacala miraha jannadu ka quudiya wa ayumaa muslimin saqaa musliman calaa dama'in qof kastoo qof muslima haraad ka maaragtay waraabiya saqaahu allahu min alraxiiqi almakhtuum ilaahay subxaanahu wa tacala isna wuxuu ka waraabiyaa
maaragtay khamrigaa la khatimay ee jannada maaragtay yaalla ayaa ilaahay subxaana watacaala ka waraabiyaa. macnuhu marka waa maxay? sadaqada adigu wixii aada baxsato ayaadna lagugu abaalmarin doonaa insha allahu tacaala. waataan soo marnay in nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ninkii saxaabiga ee hasha maaragtay hogaaminaya oo nabigu ku yidhi adiguna 700 halaad ayaad maar daarta aakhira lagu siin doonaa insha allahu tacaala. guud ahaanna diintu waxayna amartay walaalayaal in muslimiintu isu gargaaraan oo waxaa la baxsado marka loo baahan yahay in maaragtay allah mustacaan muslimka la kaalmeeyo. nabiguna waatuu xadiis saxiixa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam man nafasa can mu'minin kurbatan qofkii qof mu'mina dhibaato ka fayda oo dhibaatooyinka adduunyada ka mid a nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi yowma alqiyaama isna dhibaatooyinka aakhira ilaahay maaragtay ka fayda. waman yasara calaa muxsinin qof lagu cusleeyey oo daynkii iska bixin kari waayey qofkii u fududeeya ama waktigii u seeta dheereeya ama maaragtay allah mustacaan ka cafiya ama hadduu doono kaba bixiya qofkaa qaamaysan saacida yasarahu llahu calayhi fi dunya walaakhira isagana ilaahay subxaana watacaala adduunya aakhirada waa u sahlaa umuurtiisu u sahlaawo. nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam nin aan weligii khayr shaqaysan haddana maca dalik jannada galay. bal nabiga qisadiisa dhegeysta. xudayfa wuxuu yihi radia allahu canhu nabigaa wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ina rajulan lam yacmal khayran qat nin aan weligii wax khayra shaqaysan wa kaana yudaayinu nnaasa laakiin dadka wax daymin jiray oo qofkii u yimaada wuxuu ku oran jiray khud maa tayasar wixii kuu fududaado qaado. qofkii maaragtay allah mustacaan dadka marka shaqaalaha isaga u ah wuxuu ku oran jiray khud maa tayasar watruk maa tacasar. ciddii maaragtay allah mustacaan ay u fududaato inay wax bixiyaan oo daynkii ay gudaan ka qaada, ciddii ay ku cuslaatana iska daaya, iskana dhaafa buu oran jiray lacala allaha yatajaawazu canna inuu ilaahay inoo dhaafaa laga yaabaa innagane dadka iska dhaafaa ku cusleeneen. ninkii markuu dhintay ilahay baa soo saaray subxaana wa tacaala markaasaa waxaa lagu yidhi hal camilta khayran qad war weligaa khayr ma shaqaysa? markaasuu wuxuu yihi la maya weligaa khayr ma shaqayn laakiin rabbiyo waxaan oran jiray buu yidhi maaragtay wiilasha ii shaqeeya waxaan ku oran jiray dadka wax daymiya qofkay ku cuslaatay iska daaya kay u fududaatana ka qaada in ilahay inoo dhaafaa laga yaabaa. markaasaa rabbiweyne wuxuu ku yihi subxaana wa tacaala qad tajaawastu canka waan kaa dhaafay adna wixii dembi aad gashay waa lagaa dhaafay. riwaayad kale waxay ahayd rabbi wuxuu ku yihi ninkaas subxaana wa tacaala ana axaqu bidalika minka arrinkaa inaan maaragtay aan ciddii wax ku cuslaadaan in laga dhaafo anigaa kaaga mudan. adigana maanta maadaamada khayrba soo shaqaysan inta yarta a mooye anaa kaaga mudan inaan xumaatadii kaa dhaafo. tajaawazu can cabdii markaasa ilahay malaa'igtiisa ku oranaya addoonkayga ka dhaafo, addoonkayga wixii xumaatuu shaqeeyey ka dhaafo iska daaya. sadaqadu marka walaalayaal fadliga weyn ayay maaragtay allah mustacaan ay leedahay oo ilaahay subxaana casa wajal agtiisa darajaad sare ayaa markaa lagaga gaadhaawy. waxaa ka mid ah sadaqada iyo maaragtay fadligeeda kanzi iyo kayd bay u tahay qofka wax sii bixsaday aakhiro ugu horeeya. maalkan maanta aynu shaqaysanayno yacni waxa weeye maalkeena dhabta ahi waa ka aynu baxsanay, amaa laakiin ka aynu ka tegi doono ka inaguma lihin cidda inaga dhaxasha iyo cidda inaga dambaysa iyo cidda maaragtay allah mustacaan waka ciddaasaa iskale inagu laakiin malihine maracad intisaal aynoogu dado ayaa markaa laynaga dhex qaadi doonaa. nabigu waatuu xadiis saxiixa ku yihi calayhi salaatu wasalaam yaquulu ibni aadama maali maali ibni aadamku wuxuu leeyahay kaasi waa maalkaygii oo maal baan leeyahay waxbuu tirsanaya. wahal laka ya bni aadam min maalika ilaa ma akalta fa afnayta oo ibni aadamow ma maal baad leedahay ilaa waxaad cuntood dhamaysay mooye aw labista fa ablayta ama aada gashatay oo kaa idlaaday aw tasadaqta fa ambayta ama aada baxsatay oo dabeedna marka aad kaydsatay. waxaan marka aad kaydsatay ayaa waxa way maaragtay maalku. nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada tusaale wanaagsan buu siiyey uu ku tusaaleynayo innagana tusaale fiican inoo ah sadaqadu inay tahay maalka xaqiiqada aynu leenahay. waxaan laakiin aynu adduunka hadda ku haysan isku dhajinayno inaynaan si dhaba inagu ulahayn. wuxuu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam ayukum maaluhu axabu ilayhi min maali waarifihi. su-aal baan idin weydiinayaa qofkiiniyada maalkiisa iyo kan maaragtay u dhexli doono maalkiisa ka jecel kan maaragtay kan u dhexli doono maalkiisa ka jecel. waxay marka rasuulka ilaahay qof ma jiro ilaa ma maaragtay allah mustacaan ilaa maalkiisu jecel yahay. muxuu ku furayaa qof maaragtay dhexli doono maalkiisu jecel yahay? nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam icmaluu maa taquuluun war bal waxaad leedihin iska hubiya. waxay yidhahdeen nacam rasuulka ilahi waa sida maalka iyagaanu jecelnahay maxaanu ku fulaynaa qof aan dhexlayna maalkiisa. nabigu markaa wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam inamaa maalu axadikum maa taqadam
مالك مركز أدليه وروحة رمستين ومال وارثه ما أخر مالك ضدك إذا كان حريانا وحد بكتيمه كان كل حريا مالك يسحبات كشعر شيء مالك هذا وأنا مركز شعراته مالك رمستين كاسا مالك وين كان هذا هيستوك هذا حل الدورة وحنا شعلان وذكرت جيسان سؤال كميسي نبي عليه الصلاة والسلام حديث في رمضان أي لقصه جوريه وكجور رميه صدقته سيد أي كنز وتاي دارت آخره إيه مارت الله مستعان مارت مالت الدم أنت لكن وقتك أسكت قابلنا وأسكت بوسين دورنا إن شاء الله صدقته ولا ليال وأحيانا قفك بني آدم كأشر كيسة وأصعده سناد وكم ذا أما أن أرنكرنا عمل حبناها لقسم عمل وفضل بدنويه ما أنت قدمته أشر كيدو استاجي خلاص يعني واحد يسعى يا ماها حج كأد بدته أشر كيسو استاجي صوم كأد صومته أشر كيسو استاجي لكن صدقته ويني ده يعني واحد أشر كيدو وسعى إن شاء الله تعالى نبغى حديث يحكي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث قف هطول أنت عمل كيسوات صدح مويه وحكم لها صدقة جارية صدقة صعنيس صدقة صعنيس قف وصعنيس وحكوا النبي عليه الصلاة والسلام إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته قف مؤمن كا وحيالها إسوء بنتي كذب إيمان دونه أو أعماشه ولا سنو أجر كيس أسعنا وحكم له مصحفا ورثه مصحف وكتري أو مسجدا بناه مساجد لصي أو بيتا لابن السبيل بناه أما قولوا ضد كمالة المسافرين تأوسني أو نهر أجراه أما وبيئوا مارة سعودسي أو صدقة أخرجها من ماله في صحتي وحياتي يلحقه بعد موتي أما صدقه بحصديه يعني واحد مارة كهر ليسير أو مركو أنت قد مسوها ليدونتا صدقات كجاري ده حياها أقوى نكسن أقوى قيمها بدن أين مارة كود لأن اللو بهاني هي ويورا ليال نبغى حديث يحكي عليه الصلاة والسلام 7 يجد للعبد أجرهن بعد موته وهو في قبره تضبط يعني قفك بني آدم فأجر في سوء أصعده حتى يسوي قبره كجرة وحنبه الشيخ عليه الصلاة والسلام ويبو سعودسيي أو حفر بئرنا معال القضي أو غرس النخل أما بيرو باري أو بنى مسجدا مساجد للصيد أو ورث مصحفا مصحف مارة ضد حلسيي يعني صدقة الجارية وفربضنتها هاي أجر كيدو واسعونيا أنت صدقة ستاجنت أنت مساجدك ستاجين أنت مصحفك ستاجين هاي أنت عيلك بيا لقى عبيه أنت وضد على الوصو عنيه أنت هوتيلك الاستيف فقراء أي مالك الله مستعان أي مالك الله مستعان وحكا عنيسو معك أي علمك كغيب قادتي أنت علمك لغو برانيو أما عندي كبرتي أي كعمل فارسو أما عندك أي سيبرتي يعني واحد يدوي يقف مسلم كهي إنه كنت دار له بهاي إن شاء الله تعالى صدقة وهندي لو حكت سنة يورا ليالي فضلك على هاي إن عندك الأوهد يسوع أو قف بنت الأوهد يسوع بنات صلاة أو عماش قوة وين كمينة هذا أنت تكتأ ترى إلهي ميتيدها كسوابية وحبك بتشنا هذا المسدارسي أما لكن صدقته إن أنت الله بحثته الميتيدي ترى إلهي وأجر كمارك سي والدك سي أما قرابك سي أما صديقي صاحب سي إلهي سبحانه عز وجل وقارسينا إن شاء الله ويريد صدقته غير هذا النبي عليه الصلاة والسلام من صحابي أمال من رسولك إلهي إن أمي افتلتت نفسها هو يلي باسكر إذا كل مطي ولم توصي من أنا دارني وأظنها وحكم علينا يا أبوي لو تكلمت هذه النفط كسن لهي ويهض لهي تصدقت وحبيب أحسنها وإذا ضارم لهي أفلها أجر إن تصدقت عنها أجركم مقالي هذا وحكم بحيو لو مرة عليه الصلاة والسلام نعم وإذا كصدقه أجرك وقال دونا نكروا صحابي يا النبي قويم عليه الصلاة والسلام من رسولك إلهي يعني وحوي مارت إن أبي مات أباه بارنتي وترك المال بوكتري ولم يوصي من أنا دارني وحنا أصدق إياه لو مرة عليه الصلاة والسلام نعم أصدقين أبا سعد بن عبادة أي النبي قويم عليه الصلاة والسلام صحابي قوينا وحي رسولك إلهي توفيت أمي وهو غائب عنها رسولك إلهي هو يدي وعلمتي أنا وكم مقن مركا هو يدي وعلمتي سوى كم مقن عفوا مركا سوى رسولك إلهي هو يدي وعلمتي وأنا غائب عنها أنا وكم مقن أي ينفعها شيء تصدقت به عنها وحان يد أصدق دي ما أنفعيا لو مركا سوى عليه الصلاة والسلام نعم وأنفعيا صدقت ولا لا يرجع كذا وحين تسنية ويريد يقيمه هذا وحيانها قفك بني آدم كعيبه صلى الله عليه وسلم وناد يتعايب كسر شيء أي صدقة كمت يعني هذا تحلي بسه الله بيحسه حين هذا كوش على السيا أو هذا كوش على نان أي كمت هاي
nin shaaciro gabayaa carbeed waa tuu lahaa axsin ila annaasi tastacbid quluubahum faطaalama istacbada alinsana ixsaanu man jaada bilmaali maala annaasu qaatibatan ilayhi walmaalu lilinsaani fattaanu axsin ida kaana imkaanu wamaqdiratun falan yaduuma cala alixsaani imkaanu wuxuu leeyahy dadka u wanaagsamay qulubta bani aadamka waxa addoonsada oo ay u jecel yihiin in loo wanaagsan oo ay u jilicsan yihiin in loo wanaagsameeye qofkii maalkiisa ku deeqa dadkao dhan baa usoo iisha maxaa yeelay maalku dadka waa fidneeya axsin idaa kaana imkaanu wamaqdira war wanaag samee qof yahow inta aada awood u leedahay inaad wanaag samayso falan yaduuma cala alinsaani imkaanu yacni weligaa kuu daa'imi maayo fursaddan hadda aada ku ixsaan samayn karto weligeed kula joogi mayso wuxuu ka wadaa hadda wanaag baad samayn kartaa qaraabaad wax tari kartaa cid baad ximilin kartaa masaajid baad dhisi kartaa sadaqaad baxsan kartaa ehel baad u wanaag samayn kartaa fursaddaas hadda waad haysataa laakiin fursaddaasi weligeed jiri mayse inta ay maanta kula joogto ka faa-iidaysa buu ku leeyahy sadaqada walaalayaal waxyaalaha ilaahay subxaana casa wajalla maxabadiisa iyo jacaylkiisa iyo naxariistiisa iyo raalli ahaanshihiisa soo jeeda ayay ka mid tahay rabbi waa tuu leeyahy subxaana casa wajal waanfiquu fii sabiili illahi walaa tulquu biaydiikum ila tahlukati waaxsinuu in allaha yuxibu lmuxsiniin war wax baxsada oo wanaag sameeya ilahay kuwa wanaagga sameeya waa jecel yahay wuxuu kale nabigu yihi alayhi isalaatu wasalaam halaatatun yuxibuhum allahu wa halaatatun yubqiduhum allah saddex ilaahay waa jeceli saddexna ilaahay waa u cadhoodaa waa neceli ama aladiina yuxibuhum allah saddexda ilahay jecel yahay miyaa farajulun ataa qowman fasa'alahum billahi walam yas'alhum biqaraabatin baynahum wa baynahum fatakallafa rajulun caqaabahum faacطaahu siran laa yaclamu bicatiyati ila allahu waladii acطaahu waxaa ka mid a bu nabiga alayh isalaatu wasalaam saddexda ilahay jecel yahay qof baa dadka soo dhex istaagay ilaahay dartiid wuxuu weydiistay qof dadkii ka mid a ayaa intuu goonni u baxay si hoos ah oo cidina aanay ogeyn iyo qofkii wuxu siiyey kaa ilahay waa jeclay subxana wa tacaala muxuu rabbi ku jeclaaday sadaqada oo baxsanayo ayaa ilahay ku jeclaaday subxaana wa tacaala waxyaala naxariista ilahay soo jeeday ka mid nabigu waatuu yihi alraaximuuna yarxamuhum araxmaan irxamuu ahla alardi yarxamkum ahlu samaa kuwa naxariista ilahay waa u naxariista war naxariista waa la idin naxariisanayaa man laa yarxam innaasa laa yarxamhu llahu caza wajalla waatay nabiguna alayh isalaatu wasalaam qofka aan dadka u naxariisan ilahay isagana uma naxariisto saas baa nabigu yihi alayh isalaatu wasalaam sadaqadu walaalayaal waxay ka mid tahay ama ay daliil u tahay qofka ama ay tusinaysa oo caddaynaysaa qofkaas inuu shaydaan ka adkaaday inuu shaydaan geed iskaga xidhay maxaa yeelay ilahay wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay ashaytaanu yacidukum alfaqra wa ya'murukum bilfaxshaa shaydaanku wuxuu idin amrayaa fakri xumaatana waa idin amraya oo wuxuu idin leeyahay waad fakriyaysaan waxa bixinina yacni maaragtay barnaamijyaad leedahay waxaasuu kugu akrinaya haddaad markaa wax baxsato waxay daliil u tahay inaad shaydaanka meel ku xidhay nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa waatuu ku yidhi maa yakruju rajulun shay-an min asadaqati xataa yafuka canhu laxyay 70 shaytaana qof wax ma baxsado oo sadaqa ma bixiyo ilama hadduu bixiyey 70 shaydaan ayuu daamankooda sidaa u qabtay macnaa ka adkaaday 70 shaydaan ayuu ka adkaaday sadaqadu walaala ictibaarina ayb sadaqadu nafcigeedu ama waxtarkeedu waa mutacadi waa wax gudbaya cibaadaadku waxay u kala fadli badan yihiin cibaadana waa cibaado qaasiro aday kugu koobanta cibaadana waa cibaado nafcigeedu gudbayo cibaadaadka nafcigooda gudbayo fardulkifaayaadka inta badana culimada qaarkood baa qaba inay acmaasha kale o dhan ka khayr badan yihiin acmaasha kale inay ka khayr badan yihiin nabiguna calayhi salaatu wasalaam waatuu yihi axabu nnaasi ila allahi anfacuhum dadka waxaa rabbi loogu jacayl badan yahay ka dadka ugu anfaca badan ka dadka ugu waxtarka badan baa rabbi ugu jecel yahay wa axabu lacmaali ila allahi acmaalna waxaa rabbi xaggii loogu jecel yahay suruurun tudkhiluhu calaa muslimin qof muslim oo qalbigiisa aada farax geliso aw takshifu canhu kurbatan ama kurba aad ka faydo aw taqdi canhu daynan ama dayn aad ka guddo aw tadrudu canhu juucan ama gaajo aada maaragtay allah mustacaan ka erido walian amshii maca akhi lmuslimi fii xaajatin wuxuu nabigu uri alayh isalaatu wasalaam qof muslima oo dan uu leeyahay aan la gudayo oo kala shaqaynayo inaan u raaco ayaa axabu ilaya waxaan ka jecelahay min an actakifa fi lmasjidi shahran masaajidka inaan bildhan ku ictikaafo sadaqadu walaalayaal khayrka iyo wanaagga iyo ajarkaas faraha badan leh
ayay leedahay dee kama gooyan karno mana tirin karno waxaa jirta qormo wanaagsan oo muxaadarada tan aan kasoo khulaasaynay oo ka warramaysa fadlu sadaqa manaasibu kul khayr wax aankaas in yiraahdo umaleynaya insha Allah ta'ala qormadu wanaagsan oo qiimo badan weey sadaqadu walaalayaal laba maqsadaan laba ujeedooyin cibaado kasta marka la sharciyeeyo laba ujeedooyin baa loo sharciyeeyaa maqaasida sadaqadu waa labo maqaasida ama ujeedada sadaqada laga leeyahay labo ujeedada koowaad dadka muslimiinta ah baahidooda in la daboolo xaajadooda in la daboolo ujeedada labaad waa in dad diinta islaamka loogu gargaaro in diinta islaamka loogu gargaaro innaga maanta labadii way haysataa dadkeennii baa gaajaysan oo haraadan oo awlaadeennii baa tacliin iyo waxbarashada yani waxay maaragtay wixii aad ku baxsato dadka muslimiinta waxay maaragtay allah mustacaan waa ujeedooyinka sadaqada diinteennii baa shaqo u baahan oo masaajida in la dhiso u baahan oo maraakiis in la dhiso u baahan oo in wax loo qabto u baahan iyana waxa way maaragtay maqaasidii sadaqada iyo sakada iyo maaragtay ujeedooyinkeedii laakiin waxa ayaan daraa runtii innagoo waxaynu bixinaaba iska kooban yihiin iska xadidan yihiin iska yar yihiin in marmarka qaarkood oo maaragtay mashruuc khayriya la keeno ama la yidhaahdo oo mashruucaasaa jira waxaa laga qayb galo ama dad muslimo walaalaheenaa jira hal maaragtay dhibaataysana hal la caawiyo in markaa wadaadadii la naanayso oo la yidhahdo wadaadadu sadaqa gur badana oo waxa way maaragtay sidee weeye maaragtay waa maxay maaragtay waxaan had iyo goor la akrinayaa sadaqadu walaalayaal inaga danood waa wax diinteenni ka mid ah waxa aynu akrinay nusuus ah oo aayaad iyo axaadiis ah oo fadliga iyo maaragtay allah mustacaan ee mansilada tilmaamaya ayaa la doonaya qofka muslimka qalbigiisa inuu kusoo xaadiriyo oo marka ilaahay subxaanahu caza wajalla ugu dhawaado alla waxaan ka baryaynaa subxaana caza wajalla inuu qulubteena jilciyo oo kuwii wax baxsada rabbi subxaana caza wajalla inaga dhigo oo maalka kan waynu ka tegayna oo laynaga dhexlaya bani aadamka caqli xumadiisa waxaa ka mid ah wuxuu og yahay inuu ka tegayo buu uun sii badinaya ya waad ka tegaysaa ma berri baynu ka tegaynaa tolo mise saa dambe ilahay baa garanaya subxana wa tacaala masaacad kadib baynu ka tegaynaa tolo mise sanad kadib ilahay baa garanaya subxaana wa tacala laakiin waxaynu hubnaa inaynu maalkan aynu shaqaynayno isagoo sidiisaa ka tegayno daarihii cadcaddaa iyagoo sidoodii baan ka tegayna haddaan gawaadhi iibina iyagoo sidoodii baan ka tegayna dahab haddaynu meel ku xasaynay isagoo tabtiisiya baynu ka tegayna cid baynu uga tegayna soo arki maysid ama ilaahay ku caasiyaan ama ilahay ku raaligeliyaan adugood ka tagtay miyaanay markaa caqligu miyaanu keenaynin inaad maalkaagan aad adduunka haddaad ku haysato inaad maal dhaba ka dhigto oo xaqiiqo ah oo aad ilaahay agtiisa subxana caza wajalla sii dhigato oo aakhira aad harsato oo cadeel qofriga uu maaragtay kaala dagaalamo oo malaa'igta kaa difaaco oo waxa weye maaragtay naarta aad iska xejiso oo jannada lagu dul qaado hala dadaalo insha allahu taala waxna hala baxsado انت سنكون ختمنا ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزا الله شيخنا الفاضل الشيخ عبد الرحمن ابيض خير الجزاء. الله سبحانه وتعالى وحنا غبرينا انه محاضره القيم كاه انه ميزانك حسناتك وقدر يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اننا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.